وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنه مال وإن زاد ما كسب. فكن راضيا ترضي الإله بأمره فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب. وكن راضيا. waxaan rabaa dhalinyarada iyo dhammaan guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee barnaamijkan daawanaya in aad bal isku daydo inaad yeelato hami sare, inaad ku fikirto waxyaabo waaweyn inaad qabato oo aad iska dayso waxyaabaha safaasifal umuur, waxyaabaha hoose ee annagana mashquuliya. haddaan nahay Soomaali waxaan aad iyo aad ugu mashquulsanahay waxyaabo aad iyo aad runtii u hooseeya, waxaan naga xijaaban waxyaabihii waaweynay oo dhan. dadka waxaad arkaysaa qof saaka inta gurigiisa ka soo tagay sida uu fadhi ku dirir u fadhiyo oo u doodayo cawada laabanaya asoo wax qabsan, qof jar iyo turub iska ciyaaraya, qof 24 saac ciyaar samaynaya, qof waqtigiisa oo dhan geliyay Facebook inuu wax mala yacniya oo xan iyo qabyaalad iyo wax hoose oo dhan oo safaasifal umuur arrimaha hooseeya ayaa islaamku ku siiyay. qofkaas umrigiisa oo dhan wuxuu ku baxshay waxyaabo wax uu ka faa'iidayo noloshiisa aysan jirin. idan waxaan aad iyo aad idigu dhiirigelinayaa in aad iska daysaan dhalinyarada, sababtoo dhalinyaradu waa ummadii xoogeedii waay. Soomaalidu waxa la yiraahdaa 70% wax ka badan waa dhalinyaro. taa macnaheedu waxa weeye dhalinyaradu hadday hagaagto wadanka iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan runtii way hagaagaysaa. idan waxaa la rabaa hamigaas sare qofku inuu yeesho, la iska daayo waxyaabaha yaryarka oo safaasifal umuur. waxaa jira markii aan wax ka baranaya dalka Masar oo xagga aan joogay ayaa waxaa jiray nin dhalinyaro ah oo runtii ila joogay dalka Masar. ninkan wuxuu aad u jeclaayay tahriibka, inuu tahriibo, inuu badda maro, inuu kadibna tago Yurub. markaas waxaan weydiiyay su'aal, warniyahow hamigaagu muxuu yahay, maxaa rabtaa nolosha inaad ka gaarto, maxaa doonaysaa? markaasuu wuxuu ugu dhahay waxaan rabaa inaan tahriibo koow, kadibna waxaan rabaa inaan tago dalka Holland. yani Holland inaan tagaa rabaa. oo Holland maxaa ka jirinaysa, maxaa jira? markaasuu dhahay Holland markaan tago waxaan doonayaa inaan dego guri weyn. okay, guriga markaan degana Holland waxay caan ku tahay looda, yani looda caanaha looda soo liso waxay kamid tahay wadamada Yurub ugu qatarsan. markaas waxaan rabaa u dhahay looda caanahooda in tuba la igu soo wareejiyo oo la soo wado oo guriga aan deganahay la ii soo geliyo. yani guriga aan deganahay maxaa la ii soo gelinaya? caanihii looda tubada la ii soo gelinaya. markaas inta la ii xiro sariirta geeskeeda inay igu taalo. marka waxaan rabaa u dhahay nolosha oo farxadeydu ay ku dhameystiran tahay inaan hurdo oo markaan ka soo kaco haye aan maaragta inta qaato galaaska caanaha igu jira guriga aan tubadaas aan iska cabo, markaa cabo haddana jiifto. yani nolosha marka wuxuu dhahay raaxadii fi qimati raaxa. marka bal ninka ka waran dhalinyarada hamigiisa oo dhan wuxuu isugu keenay nolosha, hamigiisa oo dhan inuu caana cabo iyo inuu jiifto. billahi calaykum qofka noocaas nolosha wuxuu ku soo kordhinayaa ama wuxuu keenayaa? wuxuu la mid yahay dadka aan u bixiyay qofka caadiga ah. waxaa jira الإنسان العادي، إنسان كعادي وحاجة موقتها قاعدة اللي هذا قفكو أسيقو عادي أيو رشا، أسوء عادي أيو وينادا، أسوء عادي أيو جوسدا، أسوء عادي أيو المطلع، أسوء عادي أيو لنتا. معنى هذا محل ولا جيدا وقف نرشة وح وين أول تابن كلام كسو كردم. سوته قفكو حواي وحال ربع إنه كتر أثر إيراد. وضعركتين ولماذا وين هذا أجلده أحد بوجع اللي في ذاتك تاريخ ذا السمية ذاتك اسبدل ذا السمية ذاتك أصلا كوني أفر بقلاص سنة كده والحسينة والله هلينا تاريخ ذا دبوا أجينا هل كم ملايين بشرة أو لما تي عدك ورقة بتهبيراته إني سنجرين ما حيكون كلا دويهين وحيكون كلا دويهين قفنا وحولها هم الثراء هن أيولها وجد أيوة وين أيوه تكسنية قفنا نلاش وح معنا أي وقف إذا هبيراته مجران مركنا اللي هذا الصومالية إيه ذاتك كلا صومالية ضمان waxaan ku dhiirigelinayaa in aad tiirka koobaad ee aan u bixiyay tiirarka horumarka oo la yiraahdo han sare iyo halgan adag inaad si fiican runtii aad uga faa'iideyso inaad yani isku daydo inaan hankaaga aad iyo aad u ballaariso oo wax weyn aad ka dhigto dadka bani aadamku way kala han duunaan karaan qofba si uu u fikiri karaa qof baa yani raba siyaasadda qof baa raba dhaqaalaha qof baa raba arrimaha bulshada qof baa raba dacwada iyo diinta inuu ka shaqeeyo oo daaci oo noqdo qof baa sayniska iyo teknolojiyada jecel qof kastoo kamid ilaahay wax uu jeclaysiin karaa ma xuma yani qofba wax uu jeclaan karaa
isku laguma qasbano in hal shay qofku lagu wada dido hadda mesela Soomaalida oo dhan siyaasad unba isku riixeen qof kasto haddaan siyaasad laga hadlin maba jirataba war aaw dhaqaalihii war aaw bulshadii war aaw cilmigii war aaw dacwadii war aaw diintii war aaw wixii oo dhan waxa soo dhan dadku kuma socdaan waxa ku socda kaliya siyaasaddu waa hal qayb oo nolosha kamida waana muhiim laakiin waxa laga doonayaa dhinacyo kala duwan insaanku inuu ka fikiri karo hankiisa inuu geyn karo waxay ku xiran tahay habda waxa jecesha waxa rabta nolosha inaad gaarto ayay ku xiran tahay وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنه مال وإن زاد ما كسب فكن راضيا ترضي الإله بأمره فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب وكن راضيا